bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka rajo qaran TV waxaa ugu dooroon cabsi laga qaba al-shabaab oo ka taagan Kenya iyo dawladda dalkaas oo talaabo adag qaaday dawladda Soomaaliya oo dalka ka ceerisay agaasimiye hay'adda KER USA Soomaaliya sidee lagu soo afjari karaa dagaalada 30 sano ka socda Soomaaliya xogayaan idinkaga haya سعيد نني أحمد مدوبو لغو قنعي شركة دوسر ريبية مالمها صوص عود هالكاس يكون وجهيين قالها مان كغرمد مدوبو ما أنت كون دقدقة كيرانا يا حالة الصومالية موشين لغا قد بيا قدوميها مقالة وجير يا سعود قاو لو وريغي هوغان كلا دقالان كبر عبدالات كالصومالية حدي أنغو عصبتهاي أما أنغو صوبيرتي فالان داودي سبسكرايب لجنرال كان سعد ويسو wax kasto aan channel kan soo gelina taariikhdu waxay tahay 20ka bisha 8 Agoosto sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilowna Kenya saxaafadda maxalliga ee Kenya ayaa tibinaysay in ciidamada militariga internetka ka jari doonaan goobo badan oo ku yaala miyiga gobolada Mandera Garissa Wajeer cabsi laga qaba al-shabaab darteed siyaasiyaha agaasimaha guud ee hay'adda isgaarsiinta Kenya ayaa baarlamaanka Kenya u sheegay in talaabadan ay timid amni darrada ku soo badatay deegaanada sidoo kale cabsi ay dadweynaha ka qabaan kooxda al-shabaab oo xiriir la al-qaacida kana dagaalanta Soomaaliya deegaanada laga xanibay internetka waxaa loo ogolaaday adeeg ka dhicsan midkii ay hore u isticmaali jireen waana 2G sidoo kale siyaasiyaha waxa uu ka dhawaajiyay qorshe arrinta la xiriira oo ay la damacsan yihiin gobolada Tana River Turkana Marsabit iyo goobo kale oo ku yaala Kenya sanadka 2022 dagaalyahanada al-shabaab ayaa warar xooggan ku qaaday ateenooyinka shirkadaha isgaarsiinta Kenya waa arrin lagu dhaliilay dawladda maadaama ay si fudud wax uga qaban weyday dib u hagaajinteeda waxaa jira arrimo la soo dejiyay oo sheegaya in shirkadda Safaricom ay ciidamada Kenya u adeegsato inay burburiyaan ateenooyinka shirkadaha Soomaaliya geesta kale mooshin ayaa lagu gudbiyay gudoomiyaha magaalada Wajeer xildhibaanka deegaanka Beena ismaamulka Wajeer ee dalka Kenya Cabdi Maxamed Sheekh ayaa mooshin xilka qaadisa ka gudbiyay barasaabka maamulkaas Maxamed Cabdi xildhibaanka ayaa ku eedeeyay barasaabka musuqmaasuq iyo inuu ku tuntay awoodda xafiiska sanadkii hore barasaabka ayaa lagu eedeeyay musuqmaasuq kadib markii guddiga anshaxa iyo koortaga musuqmaasuqa uu xiray akoonna la sheegay inuu leeyahay wiil adeer yahay sida uu sheegay guddiga qoyska barasaabka ayaa ku lug lahaa musuqmaasuq lagu lunsaday lacag dhan 26 milyan oo lacagta Kenya ah oo lagu talagalay in laba gawaari oo qaali ah lagu iibiyo maamulka balse taabadarkeeda lagu iibiyay hal gaari oo cirsa kadibna lacagta soo hartay oo gaaraysa 12 milyan lagu shubay akoon shakhsi leeyahay barasaabka ayaa arrintaas ku tilmaamay mid aan sal lahayn oo ay siyaasadi ka dambayso markaana aan fiirino dhuusan mareeb سعيد نني أحمد مدوبو مدحوينياشا Puntland iyo Jubbaland ayaa lagu qanciyay shirka dhuusan mareeb waxaana saacadaha soo socda ay ku wajahayeen halkaasi wararka laga helay Garowe ayaa sheegay inuu isbedel ku yimid go'aankii didmada ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku aadanaa ka qaybgalka wajiga saddexaad ee shirka dhuusan mareeb 3 سعيد نني ayaa la xaqiijiyay inuu maalmaha soo socda ku biiri doono shirka dhuusan mareeb 3 kaasoo diradda lagu saarayo xaaladda dalka iyo doorashooyinka madaxweynaha Puntland ayaa la sheegay inuu cadaadis xooggan ka kulmay xubnaha beesha caalamka gaar ahaan wakiilka qaramada midowga Soomaaliya iyo xafiiska Mareykanka sidoo kale wararka ayaa intaas ku darayeen saacadaha soo socda wafdi horraac oo hadii ay gaari doonaan magaalada dhuusan mareeb kuwaas oo ka qayb galaya shirka wajiga saddexaad dhuusan mareeb rasmi u furmay habeen ka hor ayaa waxa ka qayb galaya madaxweynayaasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kala ah Hirshabelle Koonfur Galbeed Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Muqdisho inta badan shir gaar ah oo ay yeesheen madaxdaasi ayaa waxa lagu gorfeeyay caqabadaha hortaagan shirka iyo sida looga gudbi karo in kastoo ilaa haatan aysan isla gaarin wax go'aan ah oo ku aadan xaaladda guud ee dalka ama doorashooyinka soo socda waxa sidoo kale madasha ka maqan Jubbaland balse waxa lagu soo warramayaa in Axmed Madoobe isna tagayo dhuusan mareeb kadib markii lagu qanciyay in uu magaaladaasi tago wixii ka soo baxana shirkaasi beesha caalamka ay dhaqangelintiisa ka qayb qaadan doonto lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo natiijada ka soo bixi karta shirkan oo muhiim u ah doorashada 2021 si loo cadeeyo nooca ay noqon doonto laguna heshiiyo Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad kala guur ah oo aad u adag waxaana xaaladdu ay ka sii dartay markii la riday xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre beesha caalamka ayaa shalay qoraal ka soo baxay waxa lagu amray madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland inay ka qayb galaan shirkaasi maadaama iyaga ay dalbadeen in beesha caalamka ay soo farageliso arrinta shirkaasi si aysan u baaqan ama dawladda Soomaaliya qalalaasa ugu sameyn dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa dalka ka ceerisay agaasimiye hay'adda KER USA Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa ceerisay isla markaana amartay inuu dalka iskaga baxo agaasimiye hay'adda KER USA Imaan Cabdullaahi sida ku cad warqadda soo saaray 18 bishan
warqada uu soo saaray wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre ayaa madaxa KEER Soomaaliya ku eedeysay inuu iska indhatiray siyaasadda iyo xeerarka dowladda sidoo kale uu farageliyay arrimaha siyaasadda dalka waxay sidoo kale ku eedeysay inuu xiisad aan loo baahnayn ka dhex abuuray dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah Goodax Barre ayaa intaas ku daray in agaasimaha KEER Soomaaliya lagu wargeliyay eedeymahan iyadoo loo marinayo qoraal iyo kulan toos ah hay'adda KEER USA ayaa sheegtay in yeeshay warqad ka soo baxday dowladda Soomaaliya inay ka shaqeynayso sidii xal ula gaari lahayd dowladda Iimaan Cabdullaahi ayaa noqonaya mas'uulkii labaad oo ka socda hay'ad caalami ah oo laga ceeriyo Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii 2018 ka ceeriday wakiilka ergeyga gaarka ah xogayaha guud qaramada u qaabilsanaa Nicholas Haysom golaha ammaanka qaramada midoobay Soomaaliya ayaa maanta kulan degdeg ah ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya ee shirka dhuusamareeb 3 maanta oo Khamiis ah waxaa lagu wadaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kulan degdeg ah ka yeeshaan xaaladda Soomaaliya oo haatan ku jirto marxalad kala guur ah oo la aadayo doorashooyin kulanka oo ah mid xasaasi ah ayaa dhacaya gelinka dambe ee maanta sidoo qorshuhu yahay waxaana ka qayb galaya xubnaha beesha caalamka ee danayaha arrimaha Soomaaliya sidoo kale kulanka waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha ammaanka iyo doorashada oo weli lagu muransan yahay maadaama lagu kala aragti duwan yahay nuuceeda xubnaha ka qayb galaya shirka golaha ammaanka ayaa si gaar ah u falanqeyn doona sida loogu gudbi karo caqabadaha haatan hortaagan arrimaha doorashada 2021 waxa kaloo ay isha ku hayn doonaan shirka dhuusamareeb 3 oo ay ballantu tahay in lagu cadeeyo nooca doorashada dalka dhici doonta lagu heshiiyo golaha ammaanka ayaa kulanka ay ka yeelanayaan Soomaaliya wuxuu ku soo aaday xilli xaalad adag oo siyaasadeed lagu jiro waxaana beesha caalamka ay digniintii ugu cusleed ka soo saartay wajiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb 3 oo la doonayo in lagu go'aamiyo nooca ay noqon doonto doorashada Soomaaliya marka la gaaro dhamaadka sanadkan iyo bilowga kan soo socda 2021 khilaaf badan uu ka taagan yahay markaana Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayay ayaa gaaray deegaanka Feerfeer wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa gaaray deegaanka Feerfeer ee gobolka Hiiraan wasiiro xildhibaano saraakiil ciidan duqa beledweyne iyo mas'uuliyiin ka socda wasaaradda arrimaha gudaha Hiirshabelle ayaa ka qayb galay wafdiga gudoomiyaha Jeete maamulka deegaanka iyo qaybaha bulshada deegaanka Feerfeer ee gobolka Hiiraan Soomaaliya ayaa wafdiga ku soo dhaweeyay deegaankaasi gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa kulan la qaadan doona dadka deegaanka waxaana lagu wadaa in uu dhagax dhigo mashaariic horumarineed oo uu kow yahay saldhig booliis iyo kuwa kale Sacuudiga ayaa la wareegay hoggaanka howlgalka la dagaalanka kooxaha barcabada Soomaaliya boqortooyada Sacuudiga ayaa markii ugu horeysay la wareegtay hoggaanka taliska ciidamada la dagaalanka kooxaha barcabada Soomaalida kuwaas oo ka howlgala dhammaan xeebaha dalka iyo meelaha ku dhow Sacuudiga ayaa hoggaanka howlgalkan oo magaciisa loo soo gaabiyay CTV dhibic 150 kala wareegtay wadanka Faransiiska CTV ayaa sameeyay dabagal kormeer iyo howlgal caadi ah oo lagu hortagayo kooxaha barcadbadeeda waxa lagu yeeray argagixisada iyo badqabka maraakiibta sidoo kale howlgalkan wuxuu haystaa maraakiib dagaal oo gaaray 15 markab oo dhammaan ku sugan biyaha Soomaaliya ciidamada ka qayb qaata howlgalkan ayaa sidoo kale ah kuwa isku dhaf ah oo ka kala socda dhowr dal waxaana hoggaankooda isbedel lagu sameeyaa 6 biloodba hal mar waxa kaloo kamid ah meelaha ay sida aadka uga howlgalaan ciidamadaasi iyo maraakiibta badda cas gacanka cadan badweynta Hindiya iyo gacanka Cumaan howlgalka la dagaalanka barcadbadeeda Soomaalida ee loo yaqaan CTV ayaa xeebaha Soomaaliya ka howlgalaya muddo 12 sano ah oo ka soo bilaabanaysa ilaa sanadkii 2008 xilligaasi oo barcadbadeedka ay qaadeen howlgalay maraakiib badan oo ay lacag badan ka qaateen ku qafaashay badweynta Hindiya badda cadan iyo gacanka Cumaan markaana warkii dibadda hogaamiyaha mucaaradka dalka Ruushka ayaa la sheegay in isbitaal la dhigay isagoo mir daboolan isla markaana waxa laga shakisan yahay in la sumeeyay waxa sidaas sheegay haweeney afhayeen waa Alexei oo ah nin si weyn ugu ololeeya ka hortagga musuqmaasuqa ayaa xanuunsaday xilli uu 4 duulimaad ku jiray diyaaradda ayaa si degdeg ah u cagadhigtay si loo eego xaaladda hogaamiyaha waxa sidaas barta Twitterka ku sheegay afhayeenkiisa hogaamiyaha mucaaradka Ruushka ayaana si degdeg ah ugu celiyay magaalada Moscow markii hore uu ka soo kacay timay ugu dambeyntii hogaamiyaashii ka dambeeyay afgambigii Mali ayaa wada hadal yeeshay mucaaradka hogaamiyaasha afgambiga militariga ee Talaadada ka dhacay dalka Mali ayaa wada hadal la yeeshay madaxda mucaaradka oo soo dhaweeyay in xukunka laga tuuro madaxweynaha dalkaasi muddada ka talinayay Ibrahim Boubacar ay ku eedeeyeen uu ku guul dareystay wax ka qabashada kooxaha jihadoonka ah iyo dhaqaalaha dalkaasi isbeesha mucaaradka ayaa sheegay in garwaaqsiin sida ay militari uga go'an tahay soo dhisid dowladda si kastaba golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa cambaareeyay afgambiga hogaamiyaasha galbeedka Afrika ayaa iyagana ku dhawaaqay in xayiraad la saaray Mali iyadoo lagu wado in ay maanta qabtaan shir muuqaal ah oo ay uga wada xaajoonayaan talaabooyinka dheeraadka ee dalkaasi lagu soo rogayo
daawadayaal waa naga intaa warkii aad nagala socoteen haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan